iyo 30% marka laga eego qorshaha 6 bilood dhanka dakhliga waxaa la soo xareeyay dakhli dhan 4.46 bilyan taasoo ka dhigan boqolkiiba 99 marka laga eego qorshaha 6 bilood ee sanad miisaaniyaedka 215 kaasoo ahaa 4.5 bilyan dakhliga la soo ururiyay 6 bilood ee sanad miisaaniyaedka 2015 marka la barbar dhigo 6 bilood ee sanadka miisaaniyadeedii hore waxaa la soo ururiyay dakhli dheeri ah oo dhan 1.1 bilyan oo boqolayda ka noqonaysa boqolkiiba 66 buu ka badan yahay xilligiisa sanadkii hore waxaa socda dib u habeyn lagu kalsoonaan karo oo tilmaamaysa in dakhliga deegaanku gaari doono 10 bilyan inkastoo qorshihii sanadku ahaa 9 bilyan taas bishii u dambeysay hadda inkastoo 4.4 bilyan oo aan boqolkiiba 99 aan dakhliga helay haddana bishii ka dambeysay bishii 6 toddobaad oo kale oo hadda aynu galay ilaa iyo 130 milyan oo dheeraad oo dakhliga ayaa soo xarootay waxaana inta badan aan dareensanahay in bilihii hore deficit ay jireen fara badan marka bilahan xawli buu ku socdaa kor buu socdaa waxaana taa keenay dabagalkii lagu adkeeyay gaar ahaan degmooyinka kale iyadoo aan aaminsanahay meesha wax badan oo lusiya ka saartay haddii ololahaas aan sii xoojino ilaa 10 bilyan soo saari karno sanadka ayaan qiyaasaynaa